maanta waxaad arkaysaan burburkii xisbiga kulmiya waanu diidna inaanu ka qayb galno meel qof loogu cumaamadayo meel aan cadaalad jirin waxaanu niri xisbigu dariiqii loo maray doorashada ee murashaxa la doonayay in loo maro lagu soo saaro ayaan sax ahayn oo cadaalad ahayn muuse biixiyow ka fiirsa arrimaha xaq wixii aan gobol ku lahayna haddaan nahay beesha reexaad kuma hayno ka mid baan ahaa raggii farta lagu godi jiray wixii hore istaaqfurullah wax dama dhicin maayo 600,000 ee qof dadka ku dhow ee sanaaduuqda codbixinta iyagu codkooda wax ku doorta xataa 600,000 wuxuu haweysan karayaa oo isleeyahay mar haddaad odagina hayso araariyudina halkan joogto waxay sheegayaan jamaal iyo iyagana indhaha taabanaysa horta marka ugu horeysa xisbigaas ajandii ugu horeeyay ee uu gacanta ku hayay ka baydhay qaladka ka weyn ma jiro xeerkii xisbigana laguma dhaqmin inaan diidi kara yeel badal iyo shiriilada inaan dood ka oran karo dibnahayga bari karo in la diidi kara yeel ninkeeda xirsigu waan hambalyeynaya ninka anigu xorta waan jeclay muuse biixi iyo dadkii qolka maansoor lagu xareeyay waxaanu u sheegaynaa fariinta u diraynaa iyaguna ay arki doonaan waxa lagu kala baxaya hal cod baa lagu kala tegayaa reer burco waa kuwan haddii la yidhi ragga halkaa mari cidlay joogaan raggiina lagu laa cidlay u carareen baanu nahay hadday cidla u carareen maanta arka burca siday tahay wixii ka dhacay soo dhaweyntii kulmiye ina biixi oo aad moodaysid magaalada burco inuu ciidan Ethiopian qabsaday ama ciidan cadow dabadda kaga yimid 3 guuto ciidan koofiyad casaan la soo galiyay waxa laga dhaadhiciyay magaalada maraa marka dambe aan fahnay Muuse la dilayaa waxaan idin leeyahay waxa la idinka hooyadii dilaa abaryartii had uma jiido waa ogtihiin oo ninku abtiyaashii annaga weeye horu noo soo laayay ama horu noo soo cunayba ama horu noo soo xagxagtayba maantana subeer awal buu dhex marayaa oo adiga arkaya oo subeer awal wax ku samaynaya idinka arkaya qolida shacabka oo garaacaysa ama rajada ka qabta Muuse ha ku qoos qaadato wuxuu ku sameeyay abtiyaashii iyo tulki Muuse oo shaqadiisa iyo wax ku caan baxay ahayd ilaa markuu wasiirka inuu burco kala qaybiyo dhiigga dadka xabad isugu dhiibo ayaa maanta doonay inuu malaa burco kaga helo ma garanay kala qaybitaankeeda magaalada soo muu dhaxgelin Muuse wuu baqday muuse waxaan leenahay gaari faaruq lagu wareejiyay shacabka waa kuwan labaatan bas baa yimaada oo magaalooyinka burco iyo hargeysa ilaa boorama ilaa wajaale ilaa ascaroodi ka yimaada haddii bas walba mayd badwalqda la soo saaro yaa imanay berbero laga baqanayaa wax la col baa jireen haddaad markii baad kabaana ka qaadaan moobilkana ka gobonimada suweer wala berberay fadhida anigu oran maayo reer berbera dadka kabaha ka xadaana laakiin gobonimada suweer wala berberay fadhida baa la hayga taa horena xaal baa laga bixinaa waliba muuse markuu hadlama 100,000 oo qof ka go'a amska mala lagu qati abaska amsa isagu ma istuqeeya madfac kala loo doonanayo madafiina isagu ku xiran isagu madafiina isku garaaca mar walba hadlaba isagu ma isku yimaada oo kolba 100 reer meel iska jooga ka sii carara وانا عيبتي ما تنوع عادي دواي ورك دونا halkii la gaadhana halkuu day waqtigu dhawo dib baa looga sheegay Muuse haddii kursiga markii hore uu siilaya kaare kugu saaray kan maanta Soomaaliland oo dhan baa wadalo kaare ku ful karimaysid iyo diyaarad iyo baalshi iyo wax la yiraahdo maxaa si kaaw midna ku ful karimaysid shir baa la galay kulmiya shirkii shanaad la yiri weeye dib u dhiga baa la weydiiday Muuse biixi marka ugu horeysa ayaa la tartamayay meesha tagay يو 340 u helay cidi lama tartamin cidina meesha ugu ma tagin waxaas uu galayna waxba kama jiraan hadaan u burcanahay xisbiga kulmiye xisbiga talada haya isagoo oo aan kursigii fuulinba u bilaabay inuu awood siyaasadeed oo غير العادي ah oo RRUD uu ku isticmaalayay xoolihii ummadda inuu ku minja baxsado oo uu doono inuu ku muquuniyo cid allaale iyo cidii uu arkayo inay kursigaas ka hor taagan tahay صبيح magaalada waxaribay صبيح
ساعة ماذا وينك إيه لا صار هو ما قول ما والحين قول ما ما قلت وامرين ماذا وينك إيه يعني والله يستوى استرا xisbigaasi runtii waxa weeyaan damage aad iyo aad u badan ayuu ummadda gaadhsiiyey waxaan xasuustaa 12 sannadood qaaxo cid aanu dib u geysani ma jirto hebel lama oranayo cid aanu maanta dib u geysani taariikhdu way isqoraysaa waa 25 kan inuu deganeen muusoon iskarana cabdiraxmaan tuur buu kala baxay ina cigaal buur albaabka rasaas kala dhacay daahir riyaalaynu ogeyn kan imika soo cumaamaday siiraayeen ogeyn dhibtu ku hayay walkii cali gurey walka toori kaga hayay qaar baa suuranay suuqaadkii agaasimaha kala galanayno sidii barneetooda dumara dhacdayba subaxasana tukulayna wuu sidii agaasimayaasha kudhadile maalmaha dambe kurusku howlmaadu kurusku waa leeyahay uu dhicista daygu ayo dhan aad uga rartaba reerka waa laga dhaqaajay hadda dabarada igun tira waad ku dhacantaa daleecaba marka ay soo baxda lagaga dhiijay hadii nabar afkuun laga dhayo dhidina hooseeyay ma bogsanaya ilaahay baafka uga dhacay shanta dambe asxaabka salaadiintii isku doortay xisbiga kulmiye markuu xisbiga ka baxay waa abaasay runtii shuduna iska tagaa waxba meeshu ma yaalin markaasi waxaan leeyahay muso suldaanku maaha askari la bedelo jaamac shabeelle markuu leeyahay cadaabahan ka waraabeen nama cadaabahan wax jeersiinayna عذابه إلهي بارا سبحانه وتعالى شنوين كري إلهي بارا لكن سهدي دتك بإلهي دبر هدي دتك بمحل كل هذا الداسود تنتهي بقول ما صاد بالي الشعب يجي وقال صدرات كرامة إلا هذا إن سوى بالله صعب معه موسى وحنا هاي وحي بربري السماء لان لقى قلي فيل كذي أداء قعدت بجوجل يسد فيل كذا بيدا كاسم معنا كل مية لو حكومة يا wax kala daayo ambalaasiyadii caafimaadka iyo gawaadhidii dibdamiska ayaa la socotay soo dhaweynta aroorta waxay markii isagoo haddana khayr shirinayo le Jamaal Cali Xuseen isku qolaanu noo u ridayay hadda waa ninkii 3 sanadood ka horreeyay musharaxa 3 years ayuu Jamaal Cali Xuseen sharaxay muusa dalkan madaxweyne ka noqonaya waa sheeroon madaxweynaha ka noqdo ma ka dagayso ummadda موسى وسديد مويه دلعاق وبسنا نقول له عدالتنا ونقلنا reerkaygo waxa loo daayay bajaajtay korodana bajaaj soo jooga ma kii qorayba jooga ana qoray muusas jabad marka meel uu ninkaas u soo maray madaxweyne mataal xukun askari maxamed ziyaad baray noogu dambeeyay dooni mayna askari damboorta helno gawana waa meesha uu waa dadka kula geela kala dhaca qori musabiixi waqtiga hogaaminayo ceergaabo waxba uma yeelaan lamana ogola waa meesha dhaleecaynay waa meesha ay soo jeeday kulmiyada ku soo biiraayo mana imanayo ninumadiisa khiyaameeyay oo xabar tagay oo ku soo hungoobay oo xabar yimi kulmiye meel kuma leh qolada xisbiga wadani ee ragii xamar tagay moodaya in nimiri u soo caariyayo waxa la ururinaya dadkii ummadooda ku khasaartay kale oo aan doonaya maanta halkan inaan iyadana si weyn u caddeeyo inaan goostay talaca in aan wax ku soo biriyo taagtaydu ha iska yaraatee wax ku soo biriyo ummadan Somaliland horow socodkeega iyo dhismaheega waqtiga soo socda aniga oo galaya oo isticmaalaya organization-ka iyo dhismaha xisbiga kulmiye professor xisbiga kulmiye uu soo dhaweynaya
xisbiga kulmiye taladiisa iyo arrinkiisa iyo tala wadaaggiisa iyo horumarkiisa qayb baad ka tahay oday baad ka noqonaysaa aqoon-yahan baad u tahay daada ugu weyn baad u noqonaysaa waanu kugu soo dhaweynaynaa waxaasoo historically amba taariikhi waxay raacayaan horta xisbigan markaa xisbigan waxyaabo badan iyo raaraaca dambe ayaa ummaddu ka daba wada marka runtii waa xisbi ay ku adkaan doonto mustaqbalka inuu guuleysto waa xisbi aan soo bandhigi karin haba yaraatee ajanda dambe oo cusub oo aan ahayn kii lagu bartay كعرر كلمية كعرر وعرر وطني وعرر أفقر ويا كعرر وعرر وطني وعرر بدبد قروية وعرر كعرر كلمية كعرر waxaan ballan qaadaynaa hadduu ilaahay gacantiisa ku jirta haddii aanu helno the first thing anaku aanu ka hawlgelina waxa weeyaan Somaliland inay soo noqoto haybadeedii iyo mulkadeedii ay lahayd عقلي وعنا كرامة وطية وكر علمي لو وقتي ولا صدا ووطني اسمي وطني ووطني اسمي وطني عقلي وعنا كرامة وطية وكر علمي لو وقتي ولا صدا ووطني اسمي وطني اسمي وطني نبضك وذا ووطني وحيال هذا النعب ووطني وحب هذا الدورة ووطني وطنك الدسيا ووطني بشاد ورطا ووطني ويله للترا ووطني اسمي وطني اسمي وطني نبضك وذا ووطني وحيال هذا النعب ووطني وحب هذا الدورة ووطني وطنك الدسيا ووطني بشاد ورطا ووطني